curashada sanadkii 1999 iyo damaashaadkii guga cusub ay ugu dabaaldegayeen ciidamada Serbia markuu dhamaaday waxay gaaf wareegeen aagga Kosovo iyagoo ku xasuuqay 45 qof oo muslima si ay u noqoto dhacdada mid albaabada u furta dagaal xasaska loo gurto oo dhabada u xaadha dhalashada jamhuuriyad muslim oo qaaradda gabowday ka jirta kadib 9 sanadood oo lagu xardhay dhiig iyo ilin waxa hirgalay jamhuuriyadda Kosovo jamhuuriyadda agoonta ah koonfurta bari ee qaaradda Yurub gaar ahaan aagga Balqaan waxa ku taala Kosovo badka ay ku fadhidaan waa 12 kiiloomitir oo laba jibaaran tirada dadka ku nool waxay madaxa ka jireen 2 milyan oo ruux badidooduna waxay ku abtirsadaan albaaniyiintii muslimka ahayd intay halkan ku unaayeen waxa majaraha taladooda u qabtay dhowr imbaraadoriyadood laga soo bilaabo Cusmaaniyiintii qaaradda Yurub u qulqulsiyay diinta Islaamka ilaa boqortooyadii Serbiyiinta ee Naazigu gacanta ku dhigay dagaalkii labaad ee adduunka marka lagu soo biiriyo midowgii jamhuuriyaddii Yugoslavia ee hore taasoo ay yegleeleen shuuciyiinta oo garab ka helaya midowgii Sovietiga intii uu socday dagaalkii labaad ee adduunku barbilowga yididiiladii sanadkii 1974 waxa uu markhaati ka ahaa in bulshada Kosovo loo aqoonsado maamul goboleed iskii isku xukumo oo ay u taliyaan Yugoslaviyiintu si uu u bilaabmo hiikaca xornimo raadinta iyo hanqaltaagga dawlad magacooda ku suntan oo u baaqatay ilaa inta la gaariyo 9aadka burburkii ku yimi midowgii Sovietiga oo ahaa baritaaraha ugu weyn ee xukuumaddii kale taliska Yugoslavia waxa uu qodxanta ka guray wadadii gobonimo-doonka ee jamhuuriyadihii raacsanaa Yugoslavia dalalka Croatia, Bosnia iyo Slovenia waxay bilaabeen kacdoonno hubaysan si ay madax bannaanidooda u helaan halka Kosoviyiintuna ay dib u habeynayeen naqshadeen kuwadan gudaha dalkooda waagaas waxay Yugoslavia hogaaminayay dambiilo dagaal oo Serbiyaan ahaa Slobodan Milosevic oo rabitaanka madax bannaanida dawladahaas uga falceliyay xasuuqa kumanaan iyo barakicinta malaayiin qof oo rayid ah taasoo ku agtay markii dambe in xulafada NATO soo farageliyaan burburiyaanna midowgii Yugoslavia ee Milosevic haystay dalalka Croatia, Bosnia iyo Slovenia waxay noqdeen dawlado madax bannaan kadib heshiiskii Dayton ee sanadkii 1995 la isla qaatay jamhuuriyadda Kosovo waxay weli gacanta ugu jirtay xukuumaddii Serbiyiinta waddo kasta oo nabdoon ay ku raadinayaan gobonnimadoodana way mareen balse ciidamada Serbia waxay ugu jawaabeen awood hubeed iyo goodin joogto ah sanadkii 1999 adduunku kama uu falcelin dhacdadii caanka ahayd ee lagu xasuuqay 45 muslimiinta Kosovo laguna laayay dad aan hubsidan dhiig qabow muuqaaladii la soo gudbiyay xilligaasi waxay muujinayeen burburka ay horseedeen ciidamada Serbia taasoo ku agtay in dunidu ka garaabto waxa ka socda Kosovo حتى روشكي تاغير جري حكومة دي ميلوسوفيتش أي دحل مدو دنكو دو طفي كوسوفو جمهورية دا أغونتا كور سنة كي كوني السغال بقولي السغال كي غارهان سنة كي كوني السغال بقولي لبي السغاشن كي وحاو حقرت كوسوفيينتو أبابولين عيدا نتاغن دفاع الدلكو دا سربيينتو نوحي صدرين حوغاقو دا سي أي أدبر جران أود دا سوكوريسا عيدا مدي سربيا دنبيا دقالي كجيستين كوسوفو intii dunidu ku mashquulsanayd dagaalkii Yugoslavia waxa hagardaamay baaba u geysteen Serbiyiintu jamhuuriyaddan muslimka meydkoodana waxay aasanayeen iyadoo aan cidina ka tacsiyadaynayn inkastoo ay garab ka helayeen Albania haddana kama ay kafayneen gadololada ay ka diifaysnaayeen ilaa markii la gaaray sanadkii 1999 oo dawladda Mareykanku ka hor istaagtay Serbiyiinta falalkan arxanka daran ee ay ka wadaan aagga Kosovo markii dhabowday riyadii xulafada NATO ayaa weerar ku qaaday aqalka madaxtooyada ee Serbia taasoo wiiqday awoodii ay ku baabiinayeen muslimiinta Kosovo iyagoo ugu dambeyn cadeeyay in ciidamadoodu ka soo baxayaan aagga Kosovo bartamaha sanadkii 1999 ciidamadii xornimo-doonka ee kala firdhaday ayaa dib isu abaabulay oo bulshadii rayidka ahayd ee barakacayna dib ugu soo celiyay arladoodii dawladda Serbia ayaa ku eedeysay Kosoviyiinta inay argoosi ku hayaan tirada kooban ee kula nool dalka ee Serbiyiinta dawladaha adduunka ayaa soo farageliyay kuna kalifay ciidamada Kosovo inay hubka dhigaan bulshaduna si caadi ah u shaqaysato Kosoviyiinta 9 sano ayay ku qaadatay inay dhistaan dawlad awood leh oo ficil la tartami karta sanadii 2008 waxa lagu dhawaaqay curashada jamhuuriyad muslima oo ka jirta qaaradda gabowda ee Yurub kadib sanado badan oo lagu xardhay taariikhdooda dhiig iyo ilin haddaba daawada meesleeday waxa jira dawlado islaam oo gacanta ugu jira dalal kale laguna takrifalo wax soo saarkooda ama se la haybsooco haddii aad taariikhdooda hayso nagula wadaag xagga hoose
naguna soo biir haddii aad nagu cusub tahay